الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين. waxaan mahadnaqayaa marka hore saxaafadda iyo xildhibaanadii iga horeeyay ee runtii gudida kamid ah ee halkan ka hadlay iyo dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ruuxantii waxa arkaysaan dad fara badani waxa marka hore ku celinayeen magaca Naas Xaaji Cali Shire, laakiin halka waxa ka cadaatay oo indhihiina ku aragteen in hawshan aanu qaranka u haynay tahay gudi ka kooban 8 xildhibaan oo markaa dabeetana shaqadooda iyo waajibaadkii loo igmaday qabanayay ee aan ahayn magaca iyo magac gaar ah in lagu celiyo. waxaan oon lahaa dadka magaca gaar ku celinayo waa taqaanay shaqada golaha ee waxba ku celina. haddaan taa hore uga soo socdo waxaan doonayaa inaan in yar ka tibo halkan oo halkan ka sheego waxaan doonayaa inaan isku taago horta xisaab xidhbaal ayaa qarankani leeyahay oo sanad walba hanta dowlaha guud soo saara. waxaanu ka soo unkamay xisaab xidhkaasi miisaaniyadda qaranka ee isla golaha ansixiyo. miisaaniyadda qaranka marka la ansixiyo ee sanadka loogu talagalo in hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha dowladdu inay kharash gareeyaan. waxaa anaga guddida ka mid ah shaqooyinka leenahay inaan dabagalno kharashaadkaasi meeshii loogu talagalay ma galeen oo ma gaadhin. waxa ilaahay mahadi ah inaan sanadkan ku guulaysanay inaan xisaab xidhkii 2016 inaan badka soo dhigno meelihii intooda badan waliba waa oran karaa meelihii aan wixii loogu talagalay lagu qabanin. marka dadka waxa ka qaylaysay hore uma dhici jirin in markuu qofku mashruuc loo dhiibo cid ka daba tagtaa ma jirtin. laakiin maanta waxaan alxamdulillah waxaan ku guulaysanay inaan indhaha ka soo eegno xataa oo lugahayga aanu ku tagno oo aanu eegno mashruucii ma la fuliyey mise ma fulin. dadana waxaan doonayaa inaan isu taago laba meelood. waa meesha waxa weeye waa labada jeelka Boorama iyo jeelka Burco. halkan waxaan ku hayaa aan doonayaa inay ila wadaagtaan guddida qandaraasyada qaranku waxay halkan ay heshiis la gashay shirkadda loo yaqaano Baraka Construction. waxaanay kula gashay muddo 2 sano oo kaliya in lagu dhameeyo. heshiiskaasi wuxuu dhacay 17 bishii 9aad 2015. waa 2015. maanta waxa sanad kala maraya waa arkaysan. su'aashu waxa weeye maxaa ku dhacay Baraka Construction in dhameystiri weydo xilkii loo igmaday. waxa kale meesha ku jirta lacagayoogii loogu talagalay in lagu fuliyo mashruuca oo 1.5 milyan ah ee aan sheegno heshiiska ku qoran. waka heshiiskii ay la gashay wasaaradda cadaaladda waka aksamay waa heshiiskii weey. waxa uu noo sheegay wasiirka cadaaladdu markay maanta heshiiska galeen inay 100 milyan in u dhiiban farta ka saareen. waxaan kala soo gaanay in xilkii 2016 in 2 jeer lacag la siiyay. waxaan kala soo gaanay oo mashruucani jeelka Burco uu nala galay arinta liinka booliiska Hargeysa. waana ta keentay in wasiirka hawlaha guud uu meesha ku soo markii hore guudidu may ugu talagelin ma ahayn shaqadooda ma ahayn inay wasaaradii hore baadho ma ahayn. waxay baadhistii jeelka Burco ayaa nala galay arinta ku saabsan wax markii aan ogaanay in 477 loo gudbay iyagu noo sheegeen xaa ka keenteen dahabshil baan siiyay. dahabshil waxa uu keenay waa liinkii booliiska Burco. halkaas oo ka soo galay liinka Hargeysa ayaa iibiyay waxa iibiyay wasiirka arrimaha hawlaha guud ee hore. marka nimanka loo yaqaan Baraka Construction waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo 2015 hadii arrinka la idin dhiibay 577 saa qirateen in lacag aan idinku wareejiyay. wasiirka uu noo sheegay in 100 kun idinku wareejiyay. annaguna aan idin sheegay lacag idinku wareejiyay. waxaan weydiinaa Baraka Construction waayo maxaa mashruuca loo dhiman waayay. waxaan kaloo ka rabnaa inay sheegaan lacagta ilaa iminka ay qaranka ka qaataan mise wuxuu cadeeyay. waxaan doonayaa markaa in mid kale isu taago oo ku saabsan arinta liinka booliiska. waan ka daba tagnay marka horena baadhis si fiican soo socon. waa taa warqadda waxa qoray wasiirka hawlaha guud baa qoray. waa ex wasiir Al Xasan. warqadda gacantiisa ku qoray
هذا دولة وقري وحو شاقي oo waliba ay tahay og ay tahay ay wuxuu sheegay in muxuu ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo inuu ku amray in lacag la siiyo sheelka Burco dadna wuxuu ku taala waxa madaxweynuhu ugu amray inaan arintaas soo qiimeeyo wixii ka soo baxana lagu bixiyo kamada fiirsada lagu bixiyo kharashka dhismaha xabsiga Burco waxa inta hadaba raacday dhulkii hadaba markii la iibiyay وسأسوي القدر قاعد عبر كيس وعها بقولية صدح محاب لذلك بلعة كم كلا قرآن كيسة بقولية صدح يصدر بقولية ميل بقولية صدحة يميل صدرة تصور دقيقة ميل بقولية صدحة يميل صدرة أولي هالكيلومتر سكوير اللي جوي بيستح بقول $1 وإحنا قلت العقده سجال بقول تدبية لبعض كون $1 مرات وح وزير كو عدي واحد دولة دهان ديسكاونت لوجو سمية وفرسا واحد دولة هان ليس كان لوجو سمية صدح بقولي كنتم كل $1 دابشل وحاجة ده محك قدره لعكتاس وحنا نقول تلقاني إن لوجو هرا تذكي دقنا السجن مسؤول صار المها وحوي هنتي قانا كمركو دول كمركو بيه وإن خسنة الدولة كل على تبعتنا الدولة عدي أي كرئيس ماشى هايسا إن كسوان كور هينو إن دتك هالك دقنا إن ذهب شيل وكم هسيه إن يقول ساي جريو ودشي أرين كان رنتي ذهب شيل وحنو أرينا أنا وكجودهان تهاي شركة قرن أو شرف يا كرامة هذا كله لأنه واحد ده بس عنا لعقت أنت اللي جاي محوها تدوب بقولي سجال بقولي تبي لا تكون $1 بان واحد كبحي صدح بقولي وكنت كل $1 أو ديسكاونت marka taas runtii muuqanaysa oo arka karaysa marka in meeshii ay kan aan cadeen wax weey hadii qof guud ay soo eedeyso macnaheedu ma aha dambiile hay'adaha garsi loo xusay hay'adaha garsoorka u taala inay marka cadeeyaan dambiilahay si u taala qofku waa inuu qaataa istijiya qayle iyo muran iyo mashaakil iyo in dad la kiciyo lama baahna waxa loo baahan yahay inuu qof istijiyo dabeetana marka hay'adaha garsoorka u yeeraan ما كتبه وعدي يسقون عدي ميسا ومش قيس وحكوا دون أنا تاني كدرة شالك مقالة ذا كويا لا بورما شالكاس جود شركة دي لو ديبي وحدا كمان مقال لكن شركة داسنا وحكوا عديد وربحتها يدي إن شالك هي بورما إنه قبية هاي عد كذا وقتها إذا أنا واحد كرر مش كذا إن عدي صو محي قدامي سرويدي هالشيء شيلك بورما يارسون هذا مهم صراحة هذا أنت كقدبه وحكلاه هنتي المودسي المحوها أو هذا البدن كسو ياري أحمد حاج داهر أو سيريز ويرهر أهانشري أو كوسمتن إن أو صدح شهر لعاق كو قاضي مجا روج جرونكا بورما فوشر هذا النبرودي والهيا سيحس والهيا هكذا كشيء ما قلنا إكس وزير استشي وحسمينا يسأل لك على عدمها إن الوحي هنتدي قرن كاد قادين إن سي لوجو طلق عليه إنكم بحر وين تاوي هنتدي قرن كان سي لوجو طلق عليه إنكم عده ولي بقى يسجلون كنا مر أفران عد كلا كوسم تنقضي وينا ما كان قعدت ونص قالوا محوا حساب حركة الله بكرة تضبيه طبنك أيام كدرنا شو تعالى وأمرك وقاضية قف أفراد بقى وحنا كعيدين شيء كنا رنتي وأدب وما سنتين تذكر هيس ما هم هنقينا تلاقوا في عم بنقاني وحن دونا قرن كان إنه خروج هذا مهما دال الزمن عمره وقته هذا هذا لكن قف كستو هنتي قرن لونصدي أما هتشوجو أما هتجي وحويه وحهوبال إن ما نسق من دور أو اللي هركين دونه محكمة شرعية تاس بندون هكذا كعد وحن شبيني جدار تدبي لا بعطن سنة كحرنا سمايلان هي جدار كاسن شبيني واحد قال ما يدتكم هرس ما حشيجنا والله هل يسروا جنون عيسنا جود التاجرة أو إسقرب تاجر سي جدار كأي تبيسي أنا ما دام لو أودين ونروح شقية وقرك حطرة وحن دونا إن أبد كنا صار دلنا دونا إن أصمينا مال يقدر أي كسهرتان كو قربها كلنا بان أصمينا مال أنا وأفريقيا هذا ومال قرح بدن أو وناكسن أو يمادن دونا
waxaana adiga ku gaari karnaa inagoo hantida yar ee aynu haysano inagoo dalkeena gashana waxaan hubaa 27 sano intaan qaadnay waan ku wanaagsanay laakiin in ka badan baan samayn kar lahayn waa mahadsantihiin wasalaam calaykum su'aasheena ugu horeysa haddaan ku weydiiyo maxamed faarax cumaade waxaan ka socdaa telefishinka SBC xildhibaankii mudanihii adiga kaa horreeyey waxa uu halka ka sheegay in aanay jirin cid ay carabaabeen ama ay carabka ku dhufteen ha ahaato mas-uuliyiinta xukuumaddii hore ama kuwa iminka joogaba halkana adiga laftigaaga waxay carabka ku dhufatay wasiirkii hore howlaha guud iyo sidoo kale axmed xaaji daahir oo isna wasiir ka ahaa xukuumaddii hore taasi waxa weeye miyay noqon horta inaad idinku iska hortimaadeen talabaad su'aasha labaad haddaan ku raacsado ma jirtaa xubno kale oo baadhistiinu ay la gashay oo ama xukuumaddan iminka ku jira ama xukuumaddii hore ee axmed siinaane ka mid ahaa oo aad bulshada la wadaagi kartaan su'aal kale haddaan kuu raaciyo dadku waxay isweydiinayaan bulshada reer somaliland baadhista aad samayseen ee aad wadaan iyo xisaab xidhkan aad iminka dabagalka ku haysaan in waqtigii loo baahnaa aad dib ugala dhacdeen maxaa kuwaas kaga jawaabaysaa su'aalahaas horta waxaa doonayaa xildhibaankaygii horta wax cid guddiga iska hortimid ma jirto coomaado guddidoona waxaanu sheegnay oonu caddaynay inaanay ujeeddadeedu ahayn inay taarget ka dhigato ama si siyaasiya inta loo isticmaalo shaksi ujeeddooyin gaara laga leeyahy qof kasta iyo cid kasta oo hanti qaran maamulayay oo baadhidaasi wax kaga soo baxaan waa la sheegaya waa la soo bandhigaya marka wax iska hor imaatin ah oo halkaa ku jira habeeraati horta ma jirto su-aasha kale meesha ku jirta waxa weeye baadhitaanku ma intan oo keliya taa dhacday musuqmaasuq macnaheedu masaasa maaha musuqmaasuq dhacay wuu ka weyn yahay ama wuu ka ballaadhay intan laakiin intan waa intii yarada koobnayd ee guddidu soo heshay baadhitaankuna mudduu qaataa wax fudud maaha si dhib yarna looma helo dokumentiyada halkaa laga akhriyay arkayseen ta saddexaad ee ugu dambaysa eed na weydiisay waxa weeyaan xisaab xidhku waa waajib golaha u yaalla isla markaana sanadadii hore may jiri jirin hawla noocan oo kale ah oo guddiyada noocan oo kale ay geli jireen laakiin iminka waxaa jira xeer cusub oo golahu ansixiyey oo iminka hanti dhowraha qarankuna ku shaqeeyo kaasaa waajibinaya in dabagal guddidana oversight ay ku yeelato meel kasta iyo cid kasta oo hanti qaran maamusha ma ka baxay xildhibaan waxaad walaalatihiin wasiirka arrimaha guud somaliland wuxuuna ka mid yahay dad badan oo rayul caamka waxay ku eedeeyaan xukuumaddii hore dadkii wax boobay marka aynu ka hadlayno rayul caamka adigu waxaad tahay walaalkii sidoo kalena waxaad tahay gudoomiyihii guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada waxaa la sheegaya oo dad badan ay leeyihiin ninka la yihahdo xildhibaan naasir cali shire waxa uu wadaa taarget siyaasadeed oo ku samaysan utun iyo argoos siyaasadeed arrinta maxaad kaga jawaabtaa bismi illahi raxmaan raxiim horta wax si gaara iyo muxuuha iyo dad gaara iyo meel gaara oo guddadani ay taarget garanaysaa waa kii xildhibaanku idiin sheegay marna ma jirto walaalkay waa wasiir haa waxaan halkan ka caddaynayaa maalinta baadhistu ay wasiirka ay la gasho walaalkay in hortida keeni doono oo isagana soo qaban doono waxaan kaloo ku caddaynayaa anigii wasiirka mar baanu kala ahayn laba xisbi kala ahayn way jirsa maaha waxaan u malaynayaa cidda aad ka joogtaa oo ah wargeyskii geeska africa in badan bay qortoo sheegtay cidaad ka socda tvga waxay dhowja arkeen anigoo ku miisaya muxuu ahaa xisbigiisii markaa uu ka tirsanaa wasiirkii howlaha guud iyo guryeenta waqtigii xukuumaddii siirayay golaha wakiiladu la kulmay qaar ka mid a xildhibaanada maalintaasi xaalmari ka bixiyey su-aashanu kulan la qaatay arrintaasi maxay ummadda dhalin karaysaa horta waxaan aad iyo aad u caddaynaya oo aan sheegaya in saxaafadda lafteedu marka qaarkood ay ku geftay golaha waayo nin xildhibaanaha shaksiya sidii uu xildhibaanka igu hor sheegay ayaa ra'yigiisa gaarka ah ku hadlay marka xilbi isagoo aan xil guddida xubin kama aha golahun buu xubin ka yahay markaana guddidani warbixintii ay soo dhigtayna
golahu waa ansixiyey lifaaqi aanu soo raacinay waxaan doonayaa si cad u sheego saxaafadiina in golihii uu ansixiyey xisaab xidhkii 16 sidii aanu soo dhignay marka waxaan doonayaa in halkan ka cadeyno sidii xisaabka laga sheegay ninka xildhibaanka gaf buu ka galay guddida iyo golaha wakiilada waxaan u gudbinay guddiga ashxamarinta magaciisa gudbin weli cid aad wax ku eedayseen oo musuq aad ku eedayseen oo weli garsoorka somaliland uu qabtay ma haysan horta iminka ma jirto laakiin waxaan ku rajo weynahay inay maalmaha soo socdaan inaa war badan maqli doontaan adigaan gaarku weydiinaya midna guddida dhammaanteed adiga gaarku weydiinaya waxa weeyaan waxaad sheegtay in shirkadda Barra Construction ay qaadatay inay inay qandaraaskiisa sidaa aawadeed waxaad tageen soo sheegtay Barre lacagtii ay qaaday miyaanay ka guddi ahaan idinku inaad daba gashaan oo lacagtii soo xaqiijisaan hayn ila Barre shaqadiina ma haysan soo sheegi shirkadu barka maaha barra maaha waa barako waxaad inay daba gasheen horta aad baan idinku mahadnaqan inaad daba gashaan haddaan shicibkiiyo saxaafadiin nahayd hantida qaranka balse waxaad meelaha qaar ayaa taabateen lacagihii aad sheegteen wasiir cali mareexaan wuxuu weyba ka badan yihin lacagahaas maadaama ood dabagal qaran samayseen miyaanay fiicneen in reference cad oo tixraaco la taabto aada ummadda la wadaagtaan si aan loo arag guddi siyaasadaysan oo ay xukuumadda fulinta wadkanaysa dabada ka riixayso oo lagu muquuninaya siyaasiyiintii hore ee kuraastii laga qaaday laisleeyahay awoodo badan bay leeyihiin si aanay madaxa kor uga kicin miyaanay hayn in maska madaxa aad ka dilaysaan أنا هاجي جوابي سؤال horta kumbaniga qaatay qandaraaska ونوع عدي العقد السوق عدي iyo waxa qaranka ay ka soo gaadhay xisaabaheeda waana haynaa iyadoo qoraal ah iyadoo afar labadaba theory oo duuban oo coda ayaan haynaa waxa kale guddidu waliba soo xaqiijisay dib u dhaca muddadii lagu heshiiyey jeelka in lagu dhammaystiro inaanay dhinacooda ka imanin ee ay ka timid dhanka xukuumadda ay ka timid oo muddadii loogu talagalay lacaguhu inay soo gaadhaan kumbaniga aanay soo wada gaadhin soo garan maysa marka kumbanigaasi horta eed iminka caddaynta uu guddoomiyuhu ka doonayo uu yidhaha soo caddeeyaan waa wax meesha leego dee laga rabaa waana guddida waa waajibo intaanu hayno iyo wixii kale ka dhimanba inay soo hordhigaan guddida keenaan waa waajib saaran oo laga sugayo laakiin iyaga ujeeddadu maaha si aad u fahantay in guddidu ay eedeynayso shirkadda dhismaha wadda ee la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa baraka construction ma aha waa ciddii ay qandaraas ka qaadatay ee heshiiska la gashay ee muddadii ay ku heshiiyeen fulin weyday ciddaa way cidda aad ku socotaa taadaa labaad ee ugu dambeysay ya horena waan kuugu sheegay iminkana waan kuugu celinayaa guddida guddi xukuumadeed dabada ka wada maaha xukuumaddana wada shaqayn gaar oo ka dhaxaysa iyo guddida ma jirto target shakhsiyaad ah iyo cid gaar ah oo madaxye waaweyn iyo cid madaxye yaryar oo guddidu ay doonayso inay qabqabato ama ay wax ka sheegtaan dontani ma jirto laakiin waxaan ku sheegnay hantida qaranka mas-uul kasta oo hore u hayay iyo kuwa iminka hayaba inay guddidu dabagalkeedii iyo waajibka dastuuriga ah ay ku sameynayso waxa ay ku soo bandhigtana ay اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن وان بالعبد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد runtii saxaafadda iyo guddida iyo asxaabta kale baan salaamaya salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii guddidu sidaa uu ka dhawaajiyey ibraahim guddidana magaceedu uu ku qoran yahay baag guddidu waxay u xil saaran tahay inay meel kasta oo hanti qaran taal ay jeeb soo samayso oo ay soo kormeerto ay u baxdo runtii waxaan xusuustaa markii ugu horreysay aan xisaab xidhkan golaha horgeynay in goluhu ku qanci waayey markii hore waxayna ugu kaliftay inaanu gobolladii u baxno oo aanu wixii meesha uu ku soo qoray inta aanu jeegarayno oo sidaa waxaa sameeyihiin aanu soo taabanno runtii safar dheer baanu ku baxnay
waxaanu tagnay ilaa gobolka togdheer ilaa gobolka boorame meel walba aan soo jeegaraynay wixii aan markaa baadhayna aan soo jeegaraynay teeda kale guddidu waxaan waa si guud bay usoo qortay maaha wax taarget qof gaara la banaansanayay xitaa meel magac ay kaga taal hal magac kuma yaallo waxaa lagu soo gebagabeeyey soo jeedintii guddida oo tala soo jeedintii iyo go-aanadii laakiin saxaafaddaa magacyo gaara iyo wax soo qaadatay marka waraqadaana kuma yool magacyo waxa uu ku geeyey si guud in loo soo eegay meel walba wax yaalleena lasoo hubiyey oo lasoo jeegaray xaqna waanu lahayn markaan soo dhammaynana inaanu golaha ka sheegno wuxuuna go-aan gole uu noqday golihiina wuu ansixiyey laakiin dhacdadii la yaabka ahayd waxay ahayd xildhibaan golaha ka mid ah oo weliba guddida joogtadana mar soo maraysaan jeclahay oo weliba garanaya golahana soo joogay oo aqoon-yahana inuu halkaa ka sheego oo yidhahdo xaal baan ka bixiyey wixii golahu ansixiyey taasina waxa weeye waa sharci daro runtii goluhuna xeerar iyo waajibaad buu ku dhaqmaa guddidan shaxmarinta joogtada ayaa noo gudbinay guddidaasaana go-aanka qaadan doonta runtii taasna dee guddi dhan oo soo shaqayso oo shaqo qaran soo qabatay in hal xubin intay halkaa istaagto tiraado xaal baanu bixinay waxa weeye waa arrin aada u foolxun golahana weligeed kama dhicin taasna runtii waanu ka digaynaa xitaa in case hadduu mudanuhu guddida uu hawl la lahaa oo tiimka ka mid ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd guddida kama mid ahayn wixii soo geliyay tan baan anigu ilaa hadda la yaabayba markaan ku arkay media marka arrintaas waxay u taallaa guddida sifooyinkii iyo sharcigii la marinayana waa la marin doonaa runtii guddidanina maaha dee guddi wax gaara uunoo cid bidhaansanaysa iyo cid gaarana fox ku shidaysa waxa weeye wixii way soo jeegaraynayaan way soo eegayaan ilaa inta dhowrkii wixii oo dhan way isla soo eegayaan markaasay golaha usoo gudbinayaan midda kale annagu dee ma nihin oo wax soo qaban mayno laakiin annagu muhiimaddeedu waxa weeye inaanu sheegno wixii oo caddayno uun weeye wixii kale waxaa u xil saaran oo sii qabanaya waxa weeye waa fulintii waxa weeye waa hanti dhowrihii iyo garsoor wixaas iyagay u taallaa markaa laakiin annaga waxqabadkayagu waxa weeye inaanu meeshii tagno waxaan laga eegayay waxaas saa ma u dhaceen saas ma u dhaceen runtii populationku inay si khaldan u qaataan maaha waxaan waa hawl gole waana wixiina noo egmaday guddidununa waa u xil saaran tahay ilaa mar walbana oo xisaab xidh la keenayana intaanu joogno kolley aanu guddida aan nahay waanu wadayna hawshaa dee cidna taarget ka dhigan mayno laakiin wixii waajibaadka iyaga dastuurigana siinayun baanu qaadanaynaa aad baan idiin salaamaya wabilaahi towfiiq